وأنا كشقة بدأ أنا أركيسها إنه إحنا كشقة يا مركب حدود كسر قعوة عن ماذا كتها بينما سجال كساع بدأ ماذا بدأ حرة عدون عن سورة دي كلون ملاك مرة حنقدونا مقالين مرة حنقدون الشبكات هبين كتو صوب صدا ومالنتا شبكات هلا شبكات كدون تمالنتا مقالين كدون أنت بهدان وين أوكيلا حتى وانقصا مدة لو أنا كسر بيري إن بدك شقة حتى بجاج وأودي جري لكن هذا وأنا سكدا في سومالوين أجر ربتي أو أنا سألت واحد كل يرجع لنا قف شقة سنكرا ما دام أنا شقوي وياي عندنا بدن أين لهن كنترول أما يريد لقى صوغلا أنا كشقة سنكرا استدي بدو جودي هذا مكان قال العك في عنها لا مكان برنامج كف قبطنا العك يران هلا كدي بحاجة دور بدينا بدو جودها أو قلا إن كستون مرة عن قلا قوة نحمل وياه السينما اللي قلا يقوون وجلسنا قاعدين كسودان المتقار والله طبعا حالس هاي أتبرن كتاب مدة كدي بنوان برتي ما شاء الله تاني قاعد شقة سنة عقبات بدنا نكلكم إن يرجع يفوضيان إن سومالوين عايسو إن وحيابا دقيقة سكر اللي يقوله سسيتها دق جل قمصي أنت أمانة يساك بدنا أنت يفهمني سنة يا إنه هرمر جاران وحن ربا إن قف مالس قصة صارت ما أنت مقع سومالي كلنا نخلص وحن ربا إن نقطع دوما لا نفوق فيال إن شاء الله دوما بدنا أي شقيان أما شقوين هلا قف واحد بركتي وما أنت مالس قصة صارت عن نقطع dabcan waxaad daawatay waa rayaantii hore ma ahan rayaanta maanta jirta muuqaalkan waxaad ka baratay cashar ah in qofku kalsoonidiisu ay hagayso qofka marxalad walba ayaa ku jire in uu mar uun ka bixi doono haddii isagu uu la yimaado ficilkeeda muuqaalkan waxaan ku daawanay hadda soo daawanay ee wax sakamada yarka ahaa rayaan in ay ahayd gabar dhaxda u xiratay qoyskeeda ama qoyska ay ka soo jeedo rayaan waxay markeedii hore ka timid qaxootiga Kenya oo ahayd halkii ay ku dhalatay rayaan waxay qabatay shaqooyin aan lagu baran dumarka sida inay noqoto qof taksiile ah ama bajaajle ah caasimada Muqdisho dhexdeeda sidoo kale rayaan waxay ahayd qof badmaaxe ama kalluunka dadka ka shaqeeya ee xilli dambe inta taga ilaa waaga hore jooga halka badda ah waxay soo hadal qaaday in ay aad uga adkeyd xilliyadii ugu horeysay ay shaqadani qabanaysay waxay sheegtay in ay baddu aad u qabowdahay in qofku 9 saac habeenimo intuu badda tago ka daydayo malaay waa xilli ay xaaladu fiicnayn baddu wax walba ay ka qabsan karaan waa xilli ay aad u qabowdahay badda Liido ama badda Muqdisho waa xilligaas xilli ay tiri maalmihii ama bilooyinkii ugu horeeyay sankayga dhiig baa ka iman jiray maadaama aanan shaqadan u baran waxay tiri nooc walba ay u qaadatee waxaa dhacday shaqadii inaan la qabsaday waxaa kale oo dhiirnaan ku noqon kara daawade adiga muuqaalkan daawanaya waxaa ka mid ah hadaladeeda iyo su'aalaha la weydiiyay jawaabaha ay ka bixisay rayaan waxaa la yiri mustaqbalka maxaad filaysaa waxaan filayaa tiri laba arrin kow in aan noqdo qof Soomaalida dhexdeeda magac ka sameeyay taan dhacday maanta waan aragnaa wada walba ha u martee tan kale waxay tiri inaan noqdo qof tan maanta uu ku jira ka baxa oo wax uun hela maantana gacanteedu gabadha ma marna marka loo eego shalay sida ay ahayd rayaan run ahaantii waxay soo martay marxalado kala duwan marxalad walba ay soo martayna aan shaashadaha kala soconay waxa qayb ka ahaa in Soomaali ay caawisay rayaan oo loo iibiyay bajaaj maadaama markeedii hore bajaajta ay ku shaqeynayso ay ahayd bajaaj kira ah oo ay soo kireysatay balse Soomaali intay u gurmatay gabar siday bajaaj u wadaysa inta la yiri waxa loo soo iibiyay bajaajtii oo caadi ah oo soconaysa oo cusub balse qayb ayay ka qaateen Soomaalida caawisay maanta inay guul gaarto
dad baa waxay u arkaan maanta waxay gaartay gabadhan inaysan guul ahayn. si kastaba ha noqotay, aniga muuqaalkan waxaan kugu tusinayaa ee tusaalahayga uu yahay in rayaan bajaajtii hore iyo tan maanta ay run ahaantii aad iyo aad u kala duwan yihiin. micno ima sameynayso aniga in ay ku kala duwan yihiin xumaan ama wanaag, laakiin waxaa micno ii sameynaya in uun farqi uu u dhaxeeyo rayaan bajaajtii hore iyo tan maanta. waxaa kaloo muuqaalkan ku daawan doonaa rayaan oo sidoo kale ah qoraa buug qortay. haddaba buugay qortay muxuu ahaa, meeqaa sanay ka shaqaynayay shaqada iyada ah, maxaa ku sababay, barnaamijkan ayaan ku daawan doonaa. wax aad muhiim u ah in qofka intuu buug qoro oo haddana uu gado iibiyo si bulshada uga faa'iidaystaan. marka saa ii sheegtay wuxuu ka hadlaa ha geenin guriga guuldarada. taas waxay anficaysaa qof walba oo Soomaali ah inuu inta aqristo gurigiisa uu ka fogeeyo guuldarada. hay meeqa gadays $3 oo lacag. okay, intaan ka gadanin shaqada ka waran, shaqadaada iyo xirfadaada ka waran sayda tahay, xaaladda suuqa ka waran. waa iska culus yahay marka aan intii ugu gudmaa hoteeladan geeya ama beachkii meelahaas. haddii uu inta kuu gadmi waayo waxaa geenaysaa liido, haddii liido uu kuu gadmi waayo waxaa geenaysaa lambar 4. marba meeshii buuggaada uu ku gadmaya geenaysaa si lagaaga gato. meesha buugay ku gadmaa marmarka qaar inuu ku gadmo marna uu ku gadmaa. meeqa sana ku guda jirtay inaad ka ganacsatay buugagtan inaad gadid? waxyar ku jira sanadii waxyar. hay xirfado kaleeto aad leedahay ma jiraan oo aan ahayn buug? inaan noqdo badmaax ama bajaajlay. tirada guud ee ku taala meeqa oo buugtan hageyn gurigaada guuldarada meeqa xabo ah? 25 xabo. halkii xabo meeqa gadaysaa? $3. haye 25 xabo markii la isku daro dhammaantood markii la isku daro $25. haye 25 xabo waxaan rabaa inaad suuqi aadiso. dhammaantood anaa qaada suuqi aadi. qaali ha ahaadan anaa qaadana suuqi aadi 25 xabo. hageyn gurigaaga guuldaro waa buug ciwaankiisu aad ka garan karto rayaan bajaajtii hore sida ay maanto isku bedeshay. buuggaas wuxuu ka yimid maskaxdii rayaan bajaajtii hore. rayaan waxaa ka dhex guuxayay taalantiga maanta ay ku naaloonayso. si kastaba rayaan keliya ma ahayn badmaaxe ama badquuse, iyo keliya ma ahayn bajaajle, sidoo kale waxay ahayd qof qoraa ah. waad ugu wici kartaa qoraayaasha Soomaaliyeed ayay ka mid ahayd rayaan bajaaj. balse maanta aan wada daawanno rayaan bajaajta maanta. qof walba wuxuu ku leeyahay wow keep going bartaska si haya lagu dhaaya waa falxunta dhan cid ku dhayso malaha. wallahi quruxdu waa iiga darto wada qosol socdaa noqdo aniga dhan kalsooni dareemayo fahanteen. marka hore kalsooni dhan ma lahayn. the reason waxa keenayaan wuxuu ahaa hambo macquul maahan koobi waxa muxuu ahaa fake waa koobi ayaga ka daa waxa lagu leeyahay fake hata ma fahanteen. soo marka waa kaas dhaxdaada saasa u yaraato hibiska ka noolow adduunka nimanka hibisay u jecel yihiin. waayahay rayaan totally ama guud ahaanba waxaa isbedelay nolosheedii oo dhan. rayaan shalay waxay nafteedu ka ballan qaaday islamarkaasna dhaxda u xiratay in ay 2 oo aysan maanta haysan inay beri heli doonto. mid wuxuu ahaa in maanta miskiinnimada iyo faqriga ay ku jirto ay ka bixi doonto, ay beri noqon doonto qof wax walba uu doono hela. maanta way haysataa taa iyada ahi oo way heshay. tan kale oo rayaan nafteedu ka ballan qaaday waxay ahayd in ay magac ku dhex yeelato Soomaalida oo dhanba meel walba dunida ka joogaan. tii iyada ahaydna eebe waa uu rumeeyey. maanta rayaan dhankaas ma wanaagsan markaan ka fiirino waa mid aan aniga iyo adiga hadda muuqaalkan daawanaya aan ugu dayan karno. laakiin qaybo badan oo negativity ah ama dhanka xumaanta ah ayaa ka muuqda isbedelka marka dib loo eego rayaantii shalay iyo tan maanta. rayaan waxaa ka muuqda in dhankii diinta wax weyn iska bedeleen oo shalay waxay ahayd gabar marka iyada xijaaban oo ay diinta ka muuqato oo aad u asturan. balse hadda taa dhigeeda maanta ma muuqato taa iyada ah oo jirkeedo dhan waa la wada arkaya. haddii aan dhaho kuma dambaabayo oo jirkeeda inta la arkayo iyo intaan la arkayn inta la arkayo ayaa badan. Allah soo hadeeyo ayaan leenahay, taana waa ugu soo duceynaynaa. balse rayaan waxaan uga hambaleynayaa shalay
balantii ay nafsadeedu la gashay ee ay ka qaaday nafsadeeda maanta in ay ka rumaysay alle ayaa u rumeeyay balse iyadoo gacmaha isma korsaaran lugahana isma korsaaran qol mugdina iskuma soo xirin oo iskama dhaadhicin inay tahay qof noloshiiba ku dhintay balse Rayaan way dadaashay meelna waa iska soo bixisay Rayaan hambalyo ayaan aniga iyo adigaba wada leenahay tan kale waa u duceeyno waxaan leenahay abaayo Allah ku soo hadeeyo in cadaan in la guursado macnaheedu ma ahan horumarkii u weynaa ee nolol laga gaaro laakiin waxaan ku leenahay walaal Allah ku soo hadeeyo ninkaaga muslimna isaguna la ka dhigo kadiyad walaal halkaan soo gaartay muuqaalka la garay asxaabtaada la wadaag comment inoo soo qor Rayaan guul miyay gaartay mise guul darro salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh